Israa'iil miyay ku dhiiran kartaa in ay weerar ku qaado Turkiga halkeebuu marayaa qorshaha dhismaha saldhigyada military ee Turkiga uu ka sameysanayo gudaha Suuriya ishaynta iyo xiisadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Turkiga oo cirka isku shareertay iyo xiisad xoogan oo taagan 6 qodob oo saldhig u ah ishaynta dhinacyadan ayaan idin haynaa waxaad kaloo daawadeel barnaamijka falanqaynta ee Markhaati TV aad ku daawan doontaan Xuutiyiinta Yemen oo dhulka soo dhigay mid ka mid ah diyaaradihii uu ku faanayay Mareykanka iyo sidoo kale Mareykanka oo qiraya in awoodda iyo dhaqaalaha xitaa hubka uga baxaya weerarada ay ka fulinayaan gudaha Yemen in ay hoos u dhigayso oo ay wiiqayso qorshihii Mareykanka ee uu kula tacaalayo Shiinaha qodobadan ayaad barnaamijkeena maanta ku daawan doontaan taariikhdana waxay ku beegan tahay 9 bisha Abriil sanadka 2025 fadlan daawade aragtidaada waa muhiim qaybta hoose commentiga ku reebo hadaba daawade qodobka dooda ee maanta waxa uu yahay Israa'iil miyay weerari doontaa Turkiga fadlan aragtidaada waa muhiim qaybta hoose commentiga ku reebo waxaan si gaar ah kaaga codsanayaa in aad muuqaalkan share gareyso sidoo kalena aad la gareyso mahadsanid barnaamijka ayaynu guda galeynaa xiriirka Turkiga iyo Israa'iil ayaa ahaa marba marka ka dambeysa mid heer gaarayay marna waa uu wanaagsanaanayay marna waa uu sii xumaanayay tan iyo markii madaxweyne Erdogan uu si cara leh uga baxay shirkii Davos 2009 isaga oo leh hal daqiiqo xiriirka labada wadan si buuxda ayuu u go'ay si kastaba heshiisyadii Abraham Accords ee uu bilaabay Donald Trump sanadkii 2020 waxay dib u bilaabeen hagaajinta xiriirka Israa'iil iyo Turkiga laakiin weerarkii Israa'iil ay ku qaaday Gaza ee Turkiga uu ugu yeeray xasuuq ayaa mar kale sababay in safiiradii labada dhinac la kala qaato taasoo keentay in Turkiga noqdo dal si weyn uga falceliyay Israa'iil haddaba maxaa sabab u ah in Turkiga uu si weyn uga soo horjeesto Israa'iil waliba si xoogan Turkiga wuxuu si buuxda u garab istaagay shacabka Gaza isagoo si kulul u cambaareeyay Israa'iil arintani waxa ay dhalisay hadallo dagaal oo dhinacyada siyaasadeed ee labada dhinac ay isdhaafsadeen laakiin xiisaddu waxay sare u kacday kadib markii la afgambiyo Bashar al-Assad bishii December 2024 waxaa la ogaaday in Turkiga uu taageerayo mucaaradka Suuriya taasoo keentay in Israa'iil ay isku daydo in ay xakameyso saameynta Turkiga waxay bilaabeen weerar military oo ka dhan ah meelaha uu Turkiga ka dhisayo saldhigyada waxayna u arkeen Turkiga in uu yahay qatar amni oo dhankooda ku wajahan 2 sidee bay Turkiga uga falceliyeen falalka Israa'iil Turkiga waxa uu qaaday tallaabooyin dhanka siyaasadda ah amniga ganacsiga iyo diblomaasiyadda waxa la xiray dad lagu eedeeyay in ay Israa'iil u basaasayeen xiriirkii ganacsiga ayaa la jaray badeecadahana waa la joojiyay Turkiga waxa uu si toos ah u taageeray dawladda cusub ee Suuriya wuxuuna halkaasi ka bilaabay dhisidda saldhigyo military isagoo sidoo kalena la shaqeynaya sirdoonka Suuriya 3 Turkiga ma ka tanaasuli doonaa saldhigyada uu ka dhisayo Suuriya tani waa maya tan iyo markii Ahmed al-Shar loo dhaariyay madaxweynaha cusub ee Suuriya Turkiga waxa uu si rasmi ah u heshiiyay dawladdiisa labada dal waxa ay galeen heshiis dhanka difaaca ah waxaana la qorsheynayaa saldhigyo cusub nidaamyo difaac hawada ah iyo taageero military Turkiga waxa uu arkaa joogitaanka Israa'iil ee dhulka Suuriya inay tahay hanjabaad mana ka tanaasuli doono qorshayaashiisa Israa'iil miyay ku dhici kartaa inay weerarto saldhigyada Turkiga waa arin aad u adag inkasta oo Israa'iil ay weeraro ka geysan karto Suuriya haddana ma aysan beegsanin waqooyiga halkaas oo ciidamada Turkiga ay joogaan haddii Israa'iil ay weerarto Turkiga waxa dhici karta in Turkiga uu si toos ah uga falceliyo xitaa NATO ayaaba laga yaabaa inay ku lug yeelato sidaas darteed waxay u badan tahay in labada dhinac ay ku dagaalamaan si dadban iyagoo adeegsanaya kooxo wakiil ah sida PKK ama YPG haddaba labada dhinac waa Israa'iil iyo Turkiga dhanka militariga ayaa ku awood badan Turkiga waxa uu kaga awood badan yahay Israa'iil ciidan ahaan wuxuu kaalinta 8aad kaga jira liiska ciidamada adduunka halka Israa'iilna ay tahay kaalinta 15aad Turkiga waa ciidanka labaad ee ugu weyn NATO kadib Mareykanka wuxuuna aad ugu horeeyaa horumarinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn drones waxa kale oo uu dabooli karaa 80% baahiyahooda ciidan maxaa dhici doona Israa'iil waxay doonaysaa inay sii wado weeraradeeda si ay u wiiqdo Suuriya laakiin Turkiga waxa uu qorsheynayaa in uu taageero dib u dhiska iyo xasiloonida dalkaas Israa'iil oo dagaal kula jirta 4 jiho dhaqaalaheedu waa uu sii daciifayaa waxaana laga yaabaa in aysan muddo dheer sii wadi karin xaaladan haddii Netanyahu uu waayo awoodda waxa dhici karta in Israa'iil ay si tartiib uga baxdo khilaafaadka halka Turkigana uu sii xoojin doono saameyntiisa gobolka haddaba daawade maxay kula tahay qodobkan aragtidaada waa muhiim fadlan qaybta hoose commentiga ku reeba mahadsanid barnaamijka falanqaynta xogta caalamku idinkaga imaanaya Markhaati TV ayaa daawanaysaan meel walba joogtaan waqti wanaagsan ayaan idin leenahay markana aynu eegno Xuutiyiinta oo sheegaya inay soo rideen diyaarad Mareykanka uu leeyahay
maanta Arbaca ah kooxda Ansarullah ee Xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa ku dhawaaqay in ay rideen diyaarad Mareykan ah oo aan duuliye lahayn nooceeduna uu ahaa MQ-9 taasoo ay sheegeen inay ku jirtay howlgallo cadowtooyo kana socday gobolka lagu magacaabo Al-Jaf ee waqooyi bari dalka Yemen gaar ahaan dhankiisa hawdka. afayeenka militariga kooxda Yaxya Sariic ayaa bayaan muuqaal ah waxa uu ku yiri iyada oo jawaab u ah duulaanka joogtada ee Mareykanka uu ku haya dalkeena iyo xasuuqa uu u geysanayo shacabka, difaacyada cirka ee dalka ayaa ku guuleystay inay soo ridaan diyaarad MQ-9 ah iyada oo ku sugnayd hawada Al-Jaf waxaana lagu beegsaday gantaal gudaha lagu sameeyay. wuxuu sidoo kale sheegay in tani ay tahay diyaaradii saddexaad ee Mareykanka lumiyo 10 maalmood ee la soo dhaafay. sidoo kalena waxay ka dhigan tahay diyaaradii 18aad ee la rido tan iyo intii uu bilowday ololaha taageerada Gaza bishii Oktoobar 2023. afayeenku wuxuu intaasi ku daray in Mareykanka saacadihii la soo dhaafay uu qaaday weeraro dhowr ah oo dhaliyay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed iyada oo la beegsanayo deegaano kala duwan. xaaladdu weli waa ay kacsan tahay. Isniintii la soo dhaafay, Xuutiyiintu waxay ku dhawaaqeen weerar ay la beegsadeen bartilmaameed ciidan oo ku yaala Tel Aviv iyaga oo isticmaalaya diyaarado daroon ah. sidoo kalena waxa ay weerareen 2 markab oo dagaal oo Mareykan ah oo maraya badda cas iyaga oo adeegsanaya gantaalo baalal leh iyo daroonis kale. dhanka kalena ciidamada Israa'iil waxa ay sheegeen in ay soo rideen daroon ka soo duushay dhanka bari balse aysan hawada gudaha gelin. sidoo kalena aan la howlgelin seeriga digniinta marka xaaladaha khatarta la arko sababa la xiriirta siyaasadda amniga. warbaahinta Xuutiyiinta waxa ay sheegeen shalayto in tirada dhimashada weeraradii Mareykanku ku qaaday magaalada Xudeeda ay kor u dhaaftay 6 qof, dhaawacna 16 kale. dhinaca kalena talaadadii oo kaliya Mareykanku waxa uu qaaday 22 weerar oo cirka ah waxaana lala beegsaday gobollo ka tirsan Sanca, Maarib iyo Xudeeda. sargaal Mareykan ayaa u sheegay Al Jazeera intan iyo bishii Maarso 2024 uu Mareykanku beegsaday in ka badan 300 oo bartilmaameed oo la xiriirta Xuutiyiinta, isagoo xusay in weeraradaasi ay hadda noqdeen kuwo ku dhawaad maalinle ah. weerarada Mareykanka ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu bixiyay amarka ah in la qaado weerar weyn oo lagu beegsado Xuutiyiinta, wuxuuna ku hanjabay in uu si buuxda u dabargoyn doono. si kastaba kooxda Xuutiyiinta ma aysan joojin weerarada, waxayna sii wadaan in ay beegsadaan bartilmaameedyo ku yaala gudaha Israa'iil iyo maraakiibta maraya badda cas iyagoo uga jawaabaya weerarada Israa'iil ay ka wada Gaza tan iyo 18 Maarso 2024. ugu dambeyntiina haddii aynu eegno Mareykanka waxa uu taagan yahay weerarada aynu ku qaadayno Yemen waxay dhaawacayaan diyaargarowgii aan kula tacaali lahayn Shiinaha. mas-uuliyiin ka tirsan Koongareeska Mareykanka ayaa sheegay sida lagu qoray warbixin uu daabacay New York Times in hogaamiyaasha militariga Mareykanka ee qorsheynaya dagaal suuragal ah oo lala gala Shiinaha ay ka walaacsan yihiin in wasaaradda difaaca Pentagon-ka ay dhawaan u baahan karto in ay ka wareejiso hubka meelaha fog gaare ee saxda ah kaydka ay ku leedahay gobolka Aasiya iyo Pacific si loogu adeegsado bariga dhexe. sababta arrintan loo wajahayo waxay la xiriirtaa xaddiga weyn ee rasaasta iyo gantaalada uu Mareykanka ku adeegsanayo duqeymaha uu ku hayo Yemen, weeraro uu amar ku bixiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. mas-uuliyiintu waxay intaasi ku dareen in diyaargarowga Mareykanka ee gobolka Pacific sidoo kalena uu saameeyay kadib markii Pentagon-ka uu u diray markabyo dagaal iyo diyaarado bariga dhexe markii uu bilowday dagaalka Israa'iil ee Gaza bishii Oktoobar 2023 iyo markii kooxda Xuutiyiinta ee Yemen ay bilaabeen weeraro ay ku bartilmaameedsanayaan maraakiibta maraysa badda cas si ay u taageeraan Falastiiniyiinta. diyaaradaha iyo maraakiibta Mareykanka iyo sidoo kale ciidanka la socda waxay u baahan yihiin in si joogto ah loo howlgeliyo. xitaa dayactirka qalabka asaasiga ah ayaa noqday dhibaato mararka qaar. mas-uuliyiin dhowr ah oo la shaqeeya Trump oo ay ku jiraan wasiirka difaaca iyo sidoo kale agaasimaha siyaasadda ee wasaaradda difaaca waxa ay sheegeen in Mareykanka uu mudnaanta siinayo xoojinta awoodiisa militari ee gobolka Aasiya iyo Pacific si looga hortago Shiinaha oo si xawli ah u horumarinaya ciidankiisa iyo sidoo kale keedkiisa hubka nukliyeerka ah. New York Times waxay sidoo kale sheegtay in ciidamada Mareykanka ay la daalaa-dhacayaan sidii ay u miisaami lahaayeen qarashaadka culus iyo hubka la xiriira duqeymaha Yemen. warbixin hore oo toddobaadkii hore la daabacay waxay muujinayaan in ololaha cirka iyo howlgallada ballaaran ee socday muddo bil ah uu aad uga ballaarnaa inta si rasmi ah loo shaaciyay. mas-uuliyiin Mareykan ayaa intaasi ku daray in Pentagon-ka uu isticmaalay rasaas ku kacaysa ilaa iyo $200 milyan oo dollar 3 toddobaad ee ugu horeysay, halka qarashaadka guud marka la tiriyo shaqaalaha iyo howlgelinta ciidanka ay dhaafeen $1 bilyan oo dollar. Pentagon-ka wuxuu sidoo kale bariga dhexe u diray 2 markab oo qaada diyaaradaha dagaalka, diyaaradda nooceeda B2 ah oo ah kuwa isqariya, diyaarado dagaal kale iyo nidaamyo difaac oo ay ka mid yihiin Patriot iyo THAAD. 1 Abriil afayeen u hadlay Pentagon-ka laguna magacaabo Sim Parnell ayaa sheegay in markabka Carl Vinson
iyo sidoo kale maraakiibta la socda laga saaray Pacifica si ay uga qayb qaataan howlgallada ka socda bariga dhexe. Jimcihii hore Donald Trump wuxuu soo bandhigay muuqaal muujinaya weerar ay u badan tahay inuu ahaa gantaal ama duqeyn, isagoo sheegay in weerarkaasi lagu beegsaday dagaalyahano Xuutiyiin ah, waxaana uu yidhi nasiib darro mar dambe weerar kama imaan doono Xuutiyiinta. Si kastaba, mas'uuliyiinta Pentagon-ka ayaa si qarsoodi ah ugu sheegay xulafo iyo xildhibaano in Mareykanka uusan ku guuleysan burburinta kaydka hubka ee Xuutiyiinta oo ay ku jiraan gantaalada, diyaaradaha droniska iyo madaafiicda. Mas'uul sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ayaa si gaar ah ugu sheegay la taliyayaasha Koongareeska in ciidamada badda iyo hoggaanka militariga ee Pacific ay si weyn uga walaacsan yihiin xawaaraha ay u dhammaanayaan rasaasta iyo sidoo kale hubka Mareykanka uu u adeegsanayo Yemen. Mas'uuliyiin kale oo Koongareeska ah ayaa intaasi ku daray in sargaalkaasi uu sheegay in Pentagon-ka uu hadda wajahayo dhibaatooyin dhab ah oo howlgalladan la xiriira haddii dagaal uu ka qarxo dhanka Aasiya. Dhanka kalena, wasiirka difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in muhiimad gaar ah la siinayo xoojinta ciidamada gobolka Aasiya si looga hortago Shiinaha. Qorshayaasha dagaalka Mareykanka waxay sheegayaan in hubka hadda lagu adeegsanayo Yemen uu muhiim u yahay la tacaalidda weeraro cirka iyo badda ah oo ka imaan kara ciidanka xoreynta dadka ee Shiinaha PLA, gaar ahaan meelaha sida badda koonfureed ee Shiinaha, badda bari ee Shiinaha iyo meelo kale oo ka tirsan Pacifiga. Mas'uuliyiintu waxay sheegeen in hubkaasi yaallo saldhigyo militari oo Mareykanka ku leeyahay Guam, Okinawa oo Japan iyo sidoo kale goobo kale oo ku yaala Pacifica galbeed. Inkastoo Pentagon-ka uusan weli bilaabin isticmaalka kaydkaasi weliba si toos ah, haddana waxay qireen in laga yaabo inay sidaasi sameeyaan dhowaan haddii xaaladda Yemen ay kasii darto. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa xoojiyay xiriirka militari iyo sidoo kale iibka hubka ee Mareykanka la leeyahay Japan, Koonfur Korea, Philippines iyo Australia si loo hor istaago ficil militari oo laga yaabo in uu Shiinuhu ku qaado Taiwan, jasiiradda madax bannaanida iskeed ku dhawaaqday isla markaana sheegtay inay ka go'day Shiinaha intiisa kale. Madaxweyne Xi Jinping waa madaxweynaha Shiinaha, wuxuu sheegay inuu muhiim u arko in Taiwan la hoosgeeyo Shiinaha inkastoo uusan cayimin waqti rasmi ah. Donald Trumpna wuxuu si taxadar leh uga hadlay waxa uu sameyn doono haddii Shiinuhu isku dayo in uu qabsado ama go'doomiyo Taiwan. haddaba daawade maxay kula taarigtidaada qaybta hoose commentiga ku reeb fadlan haddaad inta nala soo gaartay waxaan kaa codsanayaa maadaama agtaada aysan wax weyn ka ahayn inaad muuqaalkan laag oo kaliya aad siiso mahadsanid barnaamijkan xiga intaanu ku kulmayno nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh